قصة أيا جرتي عربتو أي كوران نمبا سدح ويل دالي وانين عربيد مسكحة عربيد بالغو قياسة أما لغا حطلا سدح ويل أيو دالي سدح دي ويلو دالي مدبو دريمي إنونا إساقو داليني إسلامتو انتي حاران سميسين دنبقا وكا علول قلي سدح دي ويل با سدح عبد الله بحيي عبد الله بو لكي هوري لبدي كلا كدن بيينا وذا عبد الله بو بحيي سكرات كي با ويمد إيه كالا يقولي إن مضى يدوان دين دردارمي انتو كسي جيدسدي يقولي عبد الله دحالك يقواد لهدهي كيبو الله هدلا يالا ما قرانيو صدح دي ميد كستابه وحولي أنو عبد الله بانا أنو يجيدا عبد الله دحالك يقواد لهدهي بو هدنا كعليي عبد الله دحالك يقمدهد بو يري وأنو كمار دالين بو جيدا أنو كمار دالين إسلام تعمل كلاكا كينساتي oo xalaalku ma adan dhalanin buu leeyahay wuxuu yiri hadaad kala garan weydin kaan dhaxalkayga lahayn boqor hebel u taga isaga idin dhexdhexaadin iyo gartaa qaadi doonee odaygii waa dhintay saddexdii inan nin kastaaba wuxuu yiri ninka odayga dhaxalkiisa leh odaygu uu dhalay anigu waanahay boqorkii bay u tageen dhexda markay marayaan bay awr arkeen neef geelo meel ku joogsaday awr bay arkeen meel ku joogsaday mid baa yiri awrka halka ku joogsaday wuu ilaa labada indhood mid buu lahaa buu yiri waa aqliga carbeed baa la ayaa qisada loo soo qaataa mid kale yiri awrka halka ku joogsaday wuu lug buu ka dhutiyay mid kale yiri awrka halka ku joogsaday wuu dabalaha hada awrku uma muuqdo nin socda ayaa u yimid oo awrkii doonaya markay in yar socdeen wuxuu ku yiri war awr ma aragteen mid baa ku yiri ma ilaa ha buu yiri kii kalena wuxuu yiri ma dabalaha ha buu yiri kii kalena wuxuu yiri ma dhutiyay ha buu yiri ma naan arag bay yiraahdeen de ninkii way tilmaameen awrkiisii yaa ku qancinaya nimankani awrkaagii ma ina arag waxay yiraahdeen haddaydan arag sideebaad awrkayga u tilmaanteen buu yiri waad aragteen idinkaana u taliyay ee awrkaygii waan idinka rabaa buu waan idinka doonayaa waxa dhacay waxay yiraahdeen annaguba waanu ishaysanaa awrkaagii ma naan arag haddaad nagu qanci weydayna naan arag de kaalay boqorkaanu ku soconaa adba noola tag bay yiraahdeen boqorkaasi ayna dhexdhexaadiyay isna uu raacay iyagoo afar bay israaceen ninkii baa yiri awr baa iga lumay awrkii iga lumay markii aan weydiiyay way tilmaameen saddex tilmaamood uu lahaa ilaa iyo dabalaan iyo dhuti bay ku sheegeen haddana ma naan arag bay yiraahdeen nimankani boqor awrkaygii iyaga u taliyay wayna dafirayaan bal in dhaaday googar eeg buu yiri boqorkii baa yiri haddaydaan arag aaway kii yiri ma ilaa kii baa gacanta taagay war haddaadan awrka arag inuu ilaa maxaad ku garatay buu yiri wuxuu waxaan ku gartay geedu daaqay baan arkay oo dhinac buu ka daaqay geedaadu magoolay oo uu dhinac ka daaqay baan arkay waxaan fahmay buu yiri hadduu isha kala qabo inuu dhinacan kalena ka daaqi lahaa ishii dhinacii uu ka isha ka qabay uun ayuu geedka ka daaqayay buu yiri adigu waan ku fahmay buu yiri iska tag kii yiri ma dabala awrku ayuu u yeedhay wuxuu yiri inuu dabala maxaad ku garatay buu yiri wuxuu yiri geelu markuu saalaynayo meelu ku saaleeyay baan arkay buu yiri markuu saalaynayo saaladiisa dabada kala reebta kolka way isdaba gashaayo in cabaara ayay saaladu ku sii daadataa buu yiri waxaan arkay meelu saalaynayo markuu ku sii wada daayay buu yiri waxaan fahmay buu yiri dabadii kala reebaysay awrkan inuu lahayn oo halka saaladiisa ayaan u daliishaday buu yiri adiguna iska tag buu yiri kii yiri ma dhutiyay ayuu yiri maxaad ku garatay inuu dhutiyay hadaadan arag wuxuu yiri waxaan arkay meelu ku joogsaday oo cagta saani uma wada saarin ee barbar buu ka saaray boqorkii xukun buu riday oranaya nimankani awrkaagii mayna arage awrkaagii raadsan ninkii nimankii buu yimid oo maxaad doonaysiin buu yiri waxay yiraahdeen waanu ishaysanaa aabahay markuu sii dhimanayay laba inuu dhalay buu sheegay dhaxlayaan midina inuuna dhaxlaynin buu sheegay inaad noo kala sheegto ayaan rabaa ninkii boqorka wuxuu dhaana idin kala sheegay isuga hilib ayuu u soo qalay waan idin marti qaadayaa buu geel buu u waabayo ay buu soo qalay anjeerana waa u soo kariyay maraqna waa u keenay ilmo yaro caruura oo ay isleeyihiin hadalka ma fahmayo ayuu ag dhigtay si ay sheekadooda ugu keeno oo sheekadan uga duulo markaa ilmo yar buu ag dhigtay
hilibkii markii la keenay iyo canjeeradii iyo maraqii ayuu midi hadlay wuxuu yidhi boqorkan aynu iskula nimid ee garteenna hayaa xalaal kuma dhalan kii yaraa waa maqlayaa boqorkani xalaal kuma dhalan buu yidhi waaye kii kale ayaa hadloo wuxuu yidhi war hilibka ha taabanina waa hilib ayi kii saddexaad ayaa hadlay oo canjeerada gabadh uur laa dubtay buu yidhi canjeeradan laxooxdan aynu cunayno gabadh uur leh ayaa inoo sii dubtay buu yidhi eeg waa caqliga carbeed bay u soo qaataan kii yaraa ayuu boqorkii u yeedhay wuxuu yidhi bal nimanku waxay ku sheekaynayeen ii sheeg wuxuu yidhi nimanku midi wuxuu yidhi boqorku xalaal kuma dhalan midina wuxuu yidhi hilibku waa hilib ayi midina wuxuu yidhi canjeerada gabadh uur laa dubtay boqorku hilibkan waa og yahay inuu hilib ayi yahay isaguna wuu is-og yahay siduu yahay oo xantiisa waa hayaa laakiin canjeerada inan aan la guursan carruurnimo uu u haysto ayaa soo dubtay warkii buu isyidhi xaqiijiyo inantii buu u tegey inantii way dafirtay wax uuroo jiraa ma jira bay tidhi dumar buu u dirayoo wuxuu yidhi waa lagu qaawini dharkana waa lagaa saari waana lagu baadhi buu yidhi haddaad qiran weyda wixii jira gabadhii waxa la soo akiday oo la soo hubsaday gabadhan inay uur leedahay si xaaraanana ay ku uuraysatay boqorkii saddexdii nin buu u yimid wuxuu yidhi aaway kii yidhi boqorku xalaal kuma dhalan wuu aamusayoo inuu bad galay ayuu kii ogaaday way is-sheegi waayeen markii la sheegi waaye boqorku uu ka gudbo wuxuu yidhi aaway kii yidhi hilibku waa hilib ayi kii baa gacanta taagay maxaad ku garatay buu yidhi hilib ayi inuu yahay wuxuu yidhi hilibka caadiga ah baruurtu jiidhka way ka sarraysaa hilibka ayigana jiidhka iyo lafta dhexdooday baruurtu gashaa bal baruurtani halka hilibka kaga jirta eeg buu yidhi baruurta lafta iyo jiidhkay u kala dhaxaysaa buu yidhi wuu yidhi adu waad ka baxday xujadaadii kii yidhi gabadhu uur bay leedahay ayuu yidhi aaway kii yidhi gabadhu uur bay leedahay kii baa gacanta taagay maxaad ku garatay buu yidhi gabadhu inay uur leedahay wuxuu yidhi laxooxda naloo keenay dhinac bay buuran tahay buu yidhi daawihii gabadhii markay qooshka ay ku shubaysay daawaha dee uur bay lahayd oo lugteedaa qabanaysaoo si fiican daawaha uma wada gaadhsiinayna dhinac bay kula yar ciiraysay buu yidhi oo calooshaa qabanaysay buu yidhi bal canjeeradan eeg buu yidhi dhinac bay wada buuran tahay waa dumarka uur kale ayay astaan u tahay buu yidhi markaa inay simi kari waayaan kiina wuxuu yidhi waad ka baxday kii saddexaad buu yeedhay oo wuxuu yidhi xaggeed ka keentay adigu boqorku xalaal kuma dhalan aaway waxba ku yeeli maayee caddee buu yidhi warkaa kuu yahay hays sheego uba soo baxay labadii kale markii la helay dee wuu iska cad yahay kuu yahay waxba ku yeeli maaye buu yidhi maxaad u socoteen buu yidhi inaadna kala xukuntid oo ka dhaxal kale iyo kuwaan dhaxalka lahayn inaad kala sheegto odaygaasi wuxuuna dhalin oo xaaraan ku dhashay buu yidhi saddexdiinna ka aniga i gartay ee yidhi boqorku xalaal ma aha kaa ayaan horta dhaxalka lahayn buu yidhi waxay yidhaahdeen noo sababee sabab noo sheeg inuuna kaasi odayga dhexlaynin uuna xalaal ku dhalan noo sheeg waxaanu ku garanno dadka isku noocaa isyaqaana buu yidhi dadka isku nooca ah ayaa isyaqaana kolka waxa weeye dadkii isku nooca annagaa isku nooca buu leeyahay markaa kay gartay isku nooc baanu nahay waxaan uga soconnaa markaa waxaa la yidhaha boqorkan halkuu ka maagay ee uu dee yidhi xalaal kuma dhalan maxaad igu garatay buu yidhi inaanan xalaal ku dhalan maxaad igu garatay wuxuu yidhi ilmo yar baad naag dhigatayoo eeg nin wax basaasaya ayaad ahayd buu yidhi haddaad aragto dadka warka u kala qaada kolka dadka xalaasha ku dhashay uma badna waayo nin xalaal ku dhashay waxa weye wuu xishoodaayo wuxuunbuu xeeriyaa isagoo xoog badan haya ayuu is-ilaaliyaa carabtu waxay ku maahmaahaan suduurulaxraar qubuurulasraar bay yidhaahdeen dadka xorta ah laabtoodu waa halka sirta lagu xabaalo nin xor ah haddaad sir u sheegato wuu la dhimanun wuu la godgeli uun xataa haddaad isku dhacdiin kaga aarsa sirtan kuma jirto waa suduurulaxraar qubuurulasraar